والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. maanta halkaan aad iyo aad baan maaragtay farxad iyo reereyn ayaan ku joognaa sidii sharafta weyn lahayd ilaahay ajar iyo xasanaad ka siiyay oo labada madaxweyne dhinacyada iga taagan iyo kuwii tagay iyo martidii ugu soo sharaftay inay nagala qayb galaan caleemasaarku waa arooskoo kale aroos wax ka farxad badan baa leeyahay waajib badan ma aha marka maanta aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaan aad rabaa inaan uga hadlo hadda waxaan dhex taagannahay magaalada Cadaado dhexdooda bannaankaan taagannahay waa nabad alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay nabadaan hanoo kordhiyo hanoo ballaariyo ummadda reer Galmudug iyo reer Puntland waxaan idiin sheegaynaa aniga Cabdiweli waana kaas shacabka iyagoo israaca idinkuna isu calool furnaada wax allaaliya wixii dhibaha way joogsan doonaan jidadka waa furaynaa sida ugu dhaqsaha badan arrinta yar oo godad iyo gacna falahada ka jirtana ilaahay waxaan ka rajaynaynaa sida ugu dhaqsaha badan u istaagto odayaal iyo saraakiil iyo ciidamaan u diri doonaa sidii madaxweyne Cabdiweli u sheegay ciddii arrintaa ku xadgudubtana waa lagu ciqaabi doonaa labada dhinacba war kale meesha ma yaallo Soomaaliya ha midowdo Galmudug iyo Puntland waa kuwaas ishii bugtaay ku bikaacso maanta wixii ka dambeeya labadii isku xadgudubtaa iyagaa isku xadgudbay Puntland iyo Galmudug ma aha waa qof iyo qof qabiil iyo qabiil ma aha waa qof iyo qof ogaada intay dhageysanaysa iyo intay daawanayso si fiican arrinta u ogaada waxaan hadalkayga ku soo gabagabeynayaa waqtigaan ugu soo gaabtay diyaaradihii baa noo fadhiya khayr iyo barako ilaahay inoo keeno tawfiiqda allahna waafajiyo shidadka waa furanaynaa waa isu logaynaynaa shidadkana waanu wada dhisan doonaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh